daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaara oo aan kaga hadli doono xaalada dalka Itoobiya gaar ahaan xurguftii u dhaxaysay qowmiyada Oromada iyo Axmaarada oo kor u sii kacday kadib markii ay Dowlada Oromia soo bandhigtay ciidamo cusub oo aad u tiro badan. Dhawaan ayay ahayd markii tababarka ay u soo xidhay Dowlada Oromia ciidamo aad u tababaran oo aad ciidamadan faraha badan ee ay tababartay Dowlada Oromia waxa ka dhashay guux fara badan iyo dareen cabsi ah oo ka imanaya qowmiyada Axmaarada. ciidankan cusub ee tirada badan ayaa ku soo aaday waqti adag oo ay Itoobiya ka jirto xurgufyo iyo colaado qowmi ah kuwaasi oo u dhaxeeya qowmiyadaha kala duwan ee dalka Itoobiya. colaadan u dhaxaysa qowmiyadaha waxa ugu daran waa colaada u dhaxaysa qowmiyada Oromada iyo Axmaarada si oo ku loolamaya dalka iyo meeqaamka caasimada dalka. haddaba ciidamadan faraha badan ee tirada iyo tayadaba leh sida ka muuqata maqaaladii la soo bandhigay ayaa sababtay in ay dareen cabsi muujiyaan qowmiyada Axmaarada kuwaasi oo ku micneeyay in ciidamadan faraha badan ee ay soo bandhigtay Dowladda qowmiyada Oromia loogu talagalay in caasimada dalka ee Addis Ababa laga hawlgeliyo isla markaana lagu muqoonsado Axmaarada ku nool magaalada Addis Ababa. TV-yada qowmiyada Axmaarada iyo shakhsiyaadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha Axmaarada ayaa arrintan aad uga hadlay iyaga oo doodo iyo maqaalo kala duwan kaga hadlay. waxa kale oo xusid mudan in ay ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed ku eedeeyeen in uu si toos ah ula saftay qowmiyadiisa Oromada iyaga oo sheegay in Dr. Abiy Ahmed uu ogolaaday in ay qowmiyadiisu ay yeeshaan xuduudda ciidan ee qaabka militariga u tababaran halka uu horay uga biyo diiday damac ay Dowladda Axmaarada ku rabeen in ay sameystaan ciidan tiro badan oo u gaar ah qowmiyada Axmaarada. soo wada duubo dalka Itoobiya ayaana la saadaalin karin halka uu wajihi doono sanadka 2020 maadaama doorashooyinka dalka la filayo inay bartamaha sanadkan qabsoomaan. Cabdixamiid Maxamed, telefishinka caalamiga ee KBN.